soo dhawaada madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu in muddaaba ka warwareego arinta wadanka Iran caawa wax badan ayuu daboolka ka qaaday waxa uu leeyahay waxa warbaahinta laga sheegayo dhinaca Iran laga soo xiganayo ee la leeyahay Iran heshiiskii joojisay iyo Iran heshiiskii ka baxday waxba kama jiraan hadhageysanina wararka beenta ah ee la baahinayo aniga xog idin hayo waxyaabaha ugu dambeeyana aniga idin sheegay ayuu yiri wada hadallada waa socdaan haddaba Trump maxaa cadeyn uu dul dhigay arrimaha uu hadda daboolka ka qaaday muxuuse wali ugu adkaysanaya Iran inay tiraado wada hadalladii waa istaageen isna uu leeyahay ma jiraan waxaasi waa socdaan fariimahina sidii baa la isku weydaarsanaya ma Tehran ayaa qalad sheegaysa mase Trump ayaa runta sheegaya ma inaga waalan masacadana laga heesaya maxaa ka socda gobolkan horta Iran iyo Mareykanka wada xaajoodkooda maxaan ka ognahay sidee caawa u la faguraya warbaahinta gobolka bariga dhexe warbaan ka siinaya meesha diblomaasiyadda caawa ay marayso iyo dadaalada wadanka Pakistan oo ka shaqeynayo ilaa hadda xataa waxa la isweydiinaya waxay tahay ninkii Maxamed Isxaaq Daar ahaa oo wasiirka amuraha dibadda ahaa ninkii General Caasim Munir ahaa iyo ra'iisul wasaare Maxamed Shahbaaz Shariif saddexda oo malafkan wada xaajoodka u qaabilsanaa dawladahan kala duwan maxay u sheegalayeen waxba istaagay waxba socda waxba meeshan ku jira waan dul istaagi doonaa inta barnaamijka falanqeynayo dawladda Mareykanka taliska dhexe ee militariga ee sida gaarka u qaabilsan gobolka bariga dhexe CENTCOM la yiraahdo war weyn soo saareen maadaama uu Trump ku hadlayo luqad diblomaasiyadeed iyagu wixii dhan ay bedeleenba waxay leeyihiin wada xaajoodkan iyo waxaan anaga waxba naga magalin markabkii weynaa ee qatarta ahaa ee diyaaradaha xambaarayay ee Abraham Lincoln ayaan war idiga siinaynaa ay leeyihiin markabkaas muxuu ka dul sameynayaa Iran xog bay ka bixiyeen caawa war badanna waa ka sheegeen waan ku sheegi doonaa qodobkaasna si gaar ah ayaan u la faguri doonaa inta wada joogno dhinaca kale ee golaha wasiirada Kuwait maanta waa kulmeen dawladda boqor Sabax waxa ay caawa daboolka ka qaadeen waxana weerarayo Iran yaanay ku gamban dhinac kan yaanan istaagin iyadana weeraraysa dagaalka naga joojisa ay leedahay talow dalkan Kuwait maadaama saldhigyadiisa weerarka laga soo qaaday sida Iran ay ku andacoonayso yana Mareykanka ma ka celin karaa in Iran weerarin sida caawa arrintan iyana loo dhigayaa waan isla eegi doonaa dhinaca kale ninkii la wareegay taliska hay'adda dibadda ee sirdoonka wadanka Iran warbo soo saaray waxa uu leeyahay waa Israel aan ula jeedaa ninka la wareegay hay'adda Mossad ee Israel warbo soo saaray waxa uu leeyahay aniga Iran hal isku kan dhaaf ninkan mujtaba qamani la yiraahdo ninkii ugu horeeyay uu soo qaban waaye iyo aniga warka keenaya xusameyn doona tolo waxa uu leeyahay Mossad Iran indha hurda war adagna waan idin kaga hayaa buu leeyahay maalmaha soo socda isha halaygu hayo munaasabad buu odaga maanta hadal ka jeediyay ma istooxid iyo waliba ismuujin nin shaqo loo dhiibay oo dardar isgelinayo weeka saninku waaba nin balaaye ka dhacdo wax badan oo og yahay intaaba barnaamijkan ku dul istaagi doonaa caawa oo aan ka soo aruurinay wakaaladaha falanqeynta telefishinadu ay sameynayaan xogaha la qorayo iyo waliba sida dadka gobolka bariga dhexe ay u faakadayaanba afay wadanka la yiraahdo Iran waxay hagayeen hanaanka siyaasadda gobolka bariga dhexe waxay sidoo kale ka sheekeynayeen qaabka ay wax u socdaan ee dhinaca diblomaasiyadda iyagoo ku doodayay marka si dhab loo eego in ay joojiyeen wada hadalkii diblomaasiyadda ee Mareykanka kala dhaxeeyay garwadeenna ay ka ahayd wadanka Pakistan sababtoo waxay ku tilmaameen in ay arrimahan oo dhan ay ku xirnaayeen weerarada ka dhacaya wadanka Lebanon oo ah in lagu ballan furay oo Trump iyo waliba raggiisan wada xaajoodka ku jira ee Jared Kushner wiilka uu sodog u yahay Trump iyo Steve Witkoff iyo ninka Marco Rubio la yiraahdo iyo Beth Hekith dhammaantood marka la isku geeyo waxay yiraahdeen niman wax gala oo howl fiican keeni kara oo rag garan kara ma aha marka maadaama ay wada xaajoodkii ka baxeen oo xabad joojintii Lebanon ay nagu wacad fureen annaga
xalaal maalin cadaal la quutaa waxaan ku leenahay wada xaajoodkii waan ka baxnay wax wada hadalna ma soconayaan kadibna waa kuwii goodinta bilaabay sidii tabinadeennii hore aad la socoteen oo yidhi jabhadaan furaynaa dagaal baa gobolka bariga dhexgalaya waa kii Trump isna sagaal geed kala booday ra'iisul wasaare Netanyahu oo yidhi jooji dagaalka waxaas ma soconayaan oo xaaladan lama aqbali karo iyo sidee wax u jiraan inta markay dhacday nimanka Iiraan aha aamusnaantii ugu dadaaleen waxay leeyihiin wada hadalkii ma socdaa tasniin baa su'aal weydiinaysa Faris baa weydiinaysa Erna weydiinaysa waa wakaaladaha wararka xogta Iiraan laga helaya maadaama inta badan mas'uuliyiintooda aanay la hadlin warbaahinta galbeedka iyo kuwa carabta oo aad ogtahay warbaahinta inay noqdeen fikir lagu dagaalamayo gobolka bariga dhaxyaala marka waxay leeyihiin wada hadalka ma socdo arrinta Lebanon ay ku xiran tahay odaga Trump hawa jawaab laga sugaya odaga waa isceli waayay xitaa sida la socotay aqalka cad waryaala jooga oo warbaahinta kala duwan ee caalamku ay soo dirsadeen oo Trump su'aalo weydiiyay aad ogtiin halkaasi inay ku kaftamaan oo xogaha ay ka keenaan oo sheekooyin badan ay u dusiyaan waa sigu way arrintii telefonkiisa soo qabsaday bartuu isaga aasaasay Truth Social ka leeyahay waagi Twitter ka laga xiri jiray ayuu la soo baxay odayga qoraal oo soo dhigay goordhow waxa uu leeyahay nimankan Iiraan la yiraahdo iyo warbaahinta waxay daldalayaan waa been waxba kama jiraan wada hadalka waa socdaa darraadu socday shalow socday maalintii ka horreysay socday fariimo xasaasi ah iswadaarsanayna nimankan Iiraan la yiraahdo waa idan waaleena saaxiibayaalow dhageysta Trump anahay aniga warkayga waa cad yahay wada hadalka waa socdaa arrintaasna waan isla garanay dhinaca Israa'iilna warbaa ka yimid goordhow sargaal sare oo la hadlay warbaahintooda waxa uu leeyahay magaalada Beirut waxa weerarka aan ku qaadi rabnay waa la joojiyay waliba ninka Netanyahu aad loola hadlay Trump hadal adag siiyay Beirut wax la weerarayo koonfurteeda ama halkan daaxiyal januubiga loo yaqaano ma jiraan sidaas ayuu caawa Trump hadalkiisa iyo warbaahinta Israa'iil iyo Mareykanka ay wax u dhigayaan iyadoo marka doodda halkaas ay taagan tahay oo la leeyahay Allah ilaahay ninkii Trump ahaa wax sax uu sheegaya waa nin nabad ay ka go'an tahay saaxiibkiisa Netanyahu ay gabi dhacleynay oo gacanta ka qabtay dhinaca Iiraan buu wada xaajoodkooda raadinaya jabhada cusub iyo weeraro cusub inuu dhacaan uu diidan yahay dooddaas iyadoo taagan ayaa sheekadu waxay noqotay dhaga dheertaan u dhigta maaha dhinac kale ay Mareykanka isla daqiiqada kadib ka buskiciyeen taliska gobolka bariga dhexe oo qaabilsan Mareykanka Centcom la yiraahdo ayaa war dheer iska soo jiray warkaas oo marka aad fiirisaa leedahay war arrimihii diblomaasiyadda ee wixii laga shaqeynayay miyaani jirinba muxuu Trump sida wax ugu dhigaya oo xaaladda iyo arrimaheeda uu bedelaya maxaa dhacay marka taliska warka uu soo saaray wuxuu leeyahay horta war baan idinka siinaynaa markabka Abraham Lincoln ee diyaaradaha xambaara ee Mareykanku uu leeyahay Iiraan uu dul fadhiyaa markabkaas meel u dhaqaaqay maba jiraan 122 markab oo dhinaca Iiraan u jihaystana jihada laga bedelay oo tan iyo howlgalka marka uu bilowday intaas Iiraan ka celinay xaniyahan hayna Iiraan oo waxa rabnaa dhaqaalaha dagaalka inaan ku dhiig bixino oo waxba loo reeban maxay kale sheegeen waxay kale leeyihiin howlgalkan iyo cadaadiskan waa sii soconaya annaga ciidanana la yiraahdaa siyaasad kama shaqeeyno waana la diraa meeshina loo dirana shaqan ka qabsanaa nimanka marka taliska warka ay soo saareen asaas u dhigan maanta marka waxa doodahan iyo hadalladaas adag oo dhinaca dagaalka jeedinaya Mareykanka shalana warbaahinta waxa haystay taliyaha ciidamada sare ee Iiraan oo isla dhahaya jabhadaan furaya dagaalaan qaadaya baabulmandaban xiraya hormus bay sheekadu ahayd waan balaarinaya marka maanta waxaad moodaa in sheekada ay noqotay maanta suuqa qaata birina annaga suuqa qaadanayna waa goosgoosanayna adduunka la jihaynaya marka dagaalkii ayaa socda oo dhinacan markuu jawaabo dhinacan kale hadana jawaab ka imaanaysa ciidamadii xaaladooda halkaas ay taagan tahay waayahay haddii aan fiiriyo wararka kale ee gobolka caawa ka jira oo runtii aad u xiiso badan waa ninka la yiraahdo Roman Government waa ninka maanta la wareegay xarunta taliska Mossad ee Israel David Berni ninkii la oran jiray ayuu xilka kala wareegay maanta munaasabad weyn oo taliska xaruntaasi lagu qabtay dadka ka qayb gala waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo mas'uuliyiin kale aad baa marka ninkan fikirkiisa iyo falsafadiisa iyo hadalkiisa iyo qaabka wax u dhigayo loo sugayay
ninka marka isla markiiba nin waxaad moodaa meel wax ka ogaa odayga saa markii microphone-ka loo dhiibay isagoo waxba u reeban ayuu Iiraan horta dusha la dulmaray wixii awooda iyo wixii dagaal afeeda iyo wixii uu kari karo dhan waxa uu leeyahay David Barney raggan shaqo fiican ay qabteen oo hawshoodii waa soo guteen laakiin aniga hal igu kan fiiriyo aniga waa ninkii idin bedeli lahaa maamulkiina dhidibada u saari lahaa waxa la ii doorto wax kala maaha unugeedayna dalkiina hurdaan shaqaan idinka qabsanaya marka waxa uu leeyahay aniga hawl baan soo wadaa Musaad shaqadeeda ay qabsanaysaa dagaalada idigu soo socda ninka marka waxba ma reeban isla markiiba marka warbaahinta gobolka bariga dhexe hadii ay noqon lahayd Ra'yul Yawm hadii ay noqon lahayd telefishinada carabta sida Al Jazeera oo kale Al Arabi wararkii dhan baa la qaatay iyo xitaa kii Qaahira ikhbaariye la dhahayay oo ay Masar lahaayeen dhammaantood marka waxa la yiri bal ninkan cusub ee Goffman la yiraahdo doodiisa hal dul istaago isla markiiba qaar kamid ah qubrada soo baxay waxay leeyihiin ninkan meesha wax ka bilaabo horta waxba ka qaldan wuxuu leeyahay aniga iyo kooxda shiicada hal la isku keen dhaafo Hezbollah uu dagaal la galay dhinacyadii kale iyadoo waliba maanta New York Times uu qoray in dagaalka ka soconaya koonfurta Lebanon Israel ay ku jilba muruxday oo nimanka xisbiga ahaa ay jilbaha aasteenayna oo waxba aan la isku reeban oo si kale uma taqaanida xabadka la isku socodsiiyay sidii sabaaxad la isugu waday hadda waxa uu leeyahay marka aniga dagaalka bedelaya markii aad ka horeeyaba hawshan culeyskeeda iyo madax xanuunkeeda iyo walwalkeeda arkay maxaa dhacay marka hogaamiyaha ama ninka la yiraahdo Professor Ahmed Diyan oo Al Jazeera ka soo muuqdo waxa uu leeyahay waa nin ciyaartii oo aan bilaaban garoonka banaankiisa ku aalamiiteynaya dhahayaba hal isku keendaayo marka wuxuu leeyahay dadka damiinada ah banaanka ku aalamiiteeyaan laakiin marka garoonka la soo galo kubadda lugta la gafaan saasoo kale ayaan u rajaynaynaa uu leeyahay Iiraan iyo xisbiyadani ururadan dhisana waa nimo waligood shaqeynaya adeer awoodda leedahay bal fagaaraha kan hal arko ninka horta doodiisa sidaas uu dhigay iyadoo marka arrimahaasi ay taagan yihiin waxyaabaha kale oo la yaab kale oo caawa qosol kale waxaa ka mid ah wadanka Kuwait maalmihii ugu dambeeyay soo dhaw xulaha war baan soo wadnay wixii ka dambeeyay markii weeraradu ay ka dhaceen gudaha wadankooda oo saldhigyada Mareykanka ay duqeeyeen dawladda Iiraan markii Sariiq iyo Qasham jasiiradaha koonfurta Lebanon ku yaala ay duqeymaha ka dhaceen nimankii marka golaha wasiirada ay fadhiisiyeen adduunka war u sheegaynaa ay dhahay xog baan haynaa golaha wasiirada lagu sheegi doonaa waa culustaay hawshu marka inta marsiinayeen ayaa golaha wasiirada shiray xogta ay sheegayaan waxay dhahan annaga waxaan soo warar Iiraan oo shalaabad sheegtay waxay leeyihiin marka Iiraan waxaan rabnaa dagaalada iyo weerarka ay nagu soo qaado waa inay naga joojiso maxaa dhaca marka hadii kale caalamka u dacwoonayna ay taagay marka war Iiraan waxaan nin ama dal lagu dhagan yahay oo waxba loo reeban oo waxa la yiri waxa ugu kul waxa hawshadu ay ahayd lax gowracanigeeda kama waabato hawshadu tahay xogta aad sheegayso intaas deeta inta waa la soo ogaay maxaa kale horta nimankii war waa laga waayay hawshii wadanka Kuwait iyo jawaabihii laga sugayay iyo doodihii maalmihii dhawaa ay soo bandhigeen horta doodeeda caawa halkaas ay taala oo golaha wasiirada kulmay qamiisadooda qurqurxanaa iyo ay qaateen sharaabkoodii cabeen intaas horta banaanka keenay dhinaca Israa'iilna waxa la yiraahdo horta runta lagama waaban karo waxay leeyihiin annaga Beirut uma socono Trump waana lagu qabtay dagaalkii xisbiga halkaas aan ku joojinaynaa qaybtan aan joognana kama baxayna markii xisbigana waxay leeyihiin hadeedan ka bixin isma dhaafayno doodooda caawa kuwaasna halkaas ay ku xiran tahay oo daqiiqadaha soo socda wax badan baa isbedeli kara waana si eegayna fadlan si aad macluumaadkan iyo kuwa kala aad u heshaan YouTube-ka ku soo biir gobolkan bariga dhexe oo sheekadiisu ay taagan tahay hashu maankayga gadeema masaar bay laqday